kulan wacana daawadayaal ku soo dhawaada qodobada aad warkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah waxa soo afjarmay doodii dheereed ee u dhaxaysay baarlamaanka iyo wasiirka maaliyadda wasiir Beyle kadib markii wasiirka lagu tuhmay in uu lunsaday lacag aad u tiro badan maanta oo maalinkii saddexaad oo loo fadhiisay doodaasi ayaa soo dhamaatay waxaynu halkan ku faaqidi doonaa kuna eegi doonaa waxyaabaha wasiir Beyle lagu haystay iyo sida uu kulankaasi ku soo dhamaaday sidoo kale waxaynu eegi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maalimihii dhaweeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho oo muuqaal cusub ka soo muuqday iyo xaaladiisa caafimaad ayaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si muuqaal ah u soo muuqday kadib markii caabuqa coronavirus laga helay iyo sidoo kale caafimaadkiisa guud ayaynu halkan ku eegi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhawaanadani la xanuunsanaya caabuqa coronavirus ayaa mar ka soo muuqday villa Soomaaliya waxaynu eegi doonaa goorta uu hawlihiisa shaqo uu dib ugu soo laaban doono iyo caafimaadkiisa guud qodobadaas iyo qodobo kale aynu halkan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo sar like noo sar asxaabtaadana la sii wadaag mar kale soo dhawaada saaxiibayaal hadii aynu ku bilowno doodii adkeed ee u dhaxaysay baarlamaanka iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa maanta ku soo dhamaatay si guul ah walow la sheegayo in lacagihii lagu tuhmay wasiir Beyle ay wali maqan yihiin gudoomiyaasha baarlamaanka ayaa kulankaasi ku soo afjaray si wanaagsan maadaama wasiir Beyle uu cadaadis xoogan uu kala kulmayay gudoomiyaasha qaarkooda hadaba wasiir Beyle sababaha maaliyadda loo horkeenay maxay tahay waa maxay sababta baarlamaankan loo horgeeyo mar waliba wasiirka maaliyadda arrimahaasi oo dhan hadii aynu eegno wasiirka maaliyadda waa kan mar waliba la rabo in uu baarlamaanka ka ansixiyo lacagaha aadka u tirada badan ee hadba ka baxaya maaliyadda sidoo kale wasiir Beyle ayaa qodobada lagu haystay waxa kamid ahaa in baarlamaankii hore aysan ansixin lacago aad u tiro badan oo ka baxay maaliyadda waxaana la sheegay in uu isaga eeda leeyahay hadaba lacagahaasi aadka u tiro badan sidee ku baxeen wasiir Beyle oo su'aalo adag oo hordhigtay gudoomiye ku-xigeenka Sacdiya ayaa waxa ay ku sheegtay in wasiirku uu sheego lacagihii u tirada badnaa ee 2018 iyo 17 iyo 19 iyo 2020 ilaa iyo 2021 inta laga gaarayo lacagahaasi halka ay ku baxeen lacago cadadeedu dhantahay oo la sheegayo 40 milyan wax ku dhow ayaa ka luntay bangiga account-ka ee wadanka uu leeyahay hadaba bangiga dhexe lacagtaasi lagala baxay ee wasiir Beyle waxa uu ku sheegay in ay hay'adaha samafalka ay qaateen sidoo kalena ay ansixiyeen baarlamaanka si uu saxiixay ra'iisul wasaaraha 2018 lacagaha aadka u tiro badan ee la isticmaalay waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyri uu isaga saxiixay wasiir Beyle doodii adkeed uu kala kulmay baarlamaanka ayaa maanta soo afjarantay lacagaha halka ay ku baxeen wali lama ogo muuna cadeynin wasiir Beyle si waafi ahna banaanka uma uusan keenin lacagahaasi halka ay mareen iyo sidoo kale hay'adaha qaateen waxa uu magac dhabay hay'ado qaar oo sheegay aan iraahday in ay qaateen lacagahaasi balse arintaasi ma aan mid saxiixan oo warqado cadeyn ah ma uusan ka keenin hadaba wasiir Beyle ayaa loo kala sabtay kadib markii baarlamaanka uu kala jabay qaar kamid ah ayaa wasiir Beyle difaacay oo la sabtay halka kuwa isaga wasiir Beyle ka soo horjeedana ay su'aalo midka ka adag ay wasiir Beyle hordhigayeen hadaba mid kamid ah sida aad hore ku soo aragteen waxa baarlamaanka ka dhex muuqatay in la badbaadinayo wasiir Beyle sidoo kalena ay siyaasiyiin magac weyn ku leh wadanka Soomaaliya ay lacagahaasi ku maqan tahay xukuumadii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu tuhmayaa in lacaga aad u tiro badan ay ka lunsadeen wadanka oo wax loogu qaban lahaa haatan wasiir Beyle oo sheegay bilooyin ka hor in 6 bilood ee soo socoto mushaarka wadanka dadka u shaqeeya ama ciidamada ha ahaadaan ama si kale ha ku shaqeeyaan shaqaalaha in ay diyaarsan yihiin oo 6 bilood mushaarka soo socdo
ay qaadan lahaayeen ay meel taalo kadib markii arintaasi ay soo dhamaatay doorashaduna la qabtay oo Xasan Sheekh Maxamuud xilka la wareegay wasiir Beyle ayaa mar kale soo hadlay waxa uu sheegay in ciidamada mushaarkooda aanan wali la haynin sidoo kalena wax 6 bilood dhan mushaarkooda ay qaadan doonaan aysan meelna ku diyaarsaneen haddaba arintaasi ayaa fajac iyo layaab ku dhalisay baarlamaanka kadib doodii adag ee dhaxmartay isaga iyo baarlamaanka waxa ay qaadatay 3 bilood oo aad u dheer 3 maalin ayayna qaadatay doodaasi haddaba wasiir Beyle ayaa maanta si rasmi ah loo soo afjaray kiiskiisa walow dadku qaar ay wali ay ku qanacsaneen fasaxida wasiirka ilaa uu cadeeyo lacagahaasi halka ay ku maqan yihiin haddaba dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya waxna ka ogaa dawladii hore ee xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay sheegeen in lacagtii wadanka lagu campaign gareeyay sidoo kalena uu lagu galay campaign-ka lacagahaasina ay ku baxeen doorashada haddaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inta badan taageero aad u badan ka haysta shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegaan in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan lunsanin hantida ummadda Soomaaliyeed haddaba arinta isweydiinta mudan ayaa ah wasiir Beyle lacagahan aad ku tira badan ma uusan sheegin ragga ay ku baxday iyo sidoo kale hay'adaha qaatay ama dadka loogu deeqay dadka ayaa qaarkood waxa ay ku tuhmayaan lacagtaasi in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku campaign gareeyay sidoo kalena ay ku baxday xildhibaanadii uu isaga lacagaha aad u tira badan uu ku qarash gareeyay si ay isaga mar labaad ay u doortaan arintani ayaa noqonaysa arin aad u adag wasiir Beyle ayaana noqoni kara wasiirka aanan dib uga soo laabanin arintani aadka u foosho xun haddaba wasiir Beyle kamid miyuu noqoni doonaa xukuumadda cusub ee haatanba uu soo dhisayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Xamse Cabdi Barre lama hubo in uu dib u soo laaban doono balse dadka ayaa waxa ay sheegayaan in xukuumadda ay mid kale u magacaabi doonto wasiirka maaliyadda halkaasina uu ku waayi doono xilkiisa wasiir Beyle haddii aynu u gudubno saaxiibayaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaanadii u dambeeyay la xanuunsanaya caabuqa coronavirus waxa uuna ka soo muuqday beejka Villa Soomaaliya isaga iyo ra'iisul wasaaraha oo si waafi ah u wada socda waxaana la arkayay in madaxweynuhu caafimaadkiisu uu aad u sareeyo sidoo kalena waxa uu sheegay madaxweynaha oo cod kaliya ka soo duubay oo si live ah u soo fariisan in uu shaqadiisa dib ugu soo laaban doono mardhow sidoo kalena uu bilaabi doono howlaha qaranka ee waajibka ku ah isaga sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda haatanba la soo dhisayo ay dardar gelinayaan si wadanka ay uga dhaqan gasho xukuumad cusub sidoo kalena dadaalo dheeraad lagu bixiyo abaaraha wadanka ka jira sidoo kalena ay wax laga qabto ay tahay haddaba arintaasi ay tahay madaxweynuhuna waxa la arkayay in caafimaadkiisu uu taam u yahay sidoo kalena uu shaqadiisu diyaar garow xoogan oo ugu soo jiro intaasi ayaynu ku gabagabaynaynaa saaxiibayaal war waxaynu idinkaga haynaa guud ahaan intaan warkan war lamida ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh